السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأهلا السلام أصحابتا وحرن يا عبد الله كشكا سيدا تترك أكوسو أركتين مانتا ومالين تاريخي ومالين كدوان مالمها كله وحلي لوبا هي دليرada Soomaaliyeed in ay dhagahooda u taagaan wixii ka socda dalkeena hooyo iyo sidoo kale waxa dhamaanteena ama Soomaalida dhan ay ku hareeraysan sida wada ognahay waana aaminsanay qof walba social media ama hadda idaabanaya 99% waxaan aaminsanay dhalinyarada Soomaaliyeed in si xawli ah u isticmaalaan social media ayna la socdaan arinta badeena arinta waayahan soo jiitamaysay waa sababta keentay in aan ka hadlo waxaan aaminsanahay in dhalinyarada Soomaaliyeed duqow dhalinyarada Soomaaliyeed haweenka dhan walba ha noqoto in ay maanta dhagaha u taagayaan waxa ka soo bixi doono maxkamadda u gorqaadaysa Soomaaliya iyo dalka dariska aan hana ee Kenya waa maalin taariikhi ah waa maalin maxkamadda ICJ ay kala cadeyn doonto ama loo baahan yahay in ay ka hadasho ama sida saxda ah badda cid leh waan aaminsanahay in aan badeeno anaka aan leenahay isa Kenya ay badeeno diyaar u tahay in ay xoog ku qaadato akiise waxaan farxad oo halkan soo istaajiyay ma dareemi kartaa meel walba aad tagto ugu horeyso Facebook-ga Soomaalida sida qaaska u isticmaasho ama ha noqdaan dadka indhagaradka ay u isticmaalaan waxaad ku arkaysaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo shucuurtooda ku soo bandhigaya siday ugu xun yihiin in badooda maanta ay Kenya ay hunguriyeyso waa sababta ay keentay in aan halkan imaado sidoo kale xalay waxaan arkayay barta Clubhouse-ka dhalinyaro fara badan oo ka hadlaya arinta badda waxaan la yaabay dhalinyarada Soomaaliyeed maanta siday diyaar ugu yihiin in dalkooda waxyaabaha xasaasiga ah ay mar walba micnaha ugu diyaarsan yihiin dhamaanteena waxaan diyaar u nahnay adiga hadda fiirsanaya iyo qof walba Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay in uu ka qayb qaato sidii badeena aan ku heli lahayn waan la wada ogyahay caalamka oo dhan og in badeeno aan anaka leenahay ay dawladda Kenya isku dayayso in ay badan xogaa ay sameeyso in xitaa hadii xitaa heli weyso in xitaa qayb kamid ah ay hesho laakiinse farxadda halka aan la taaganahay waan aaminsanahay wali inaan helin waan aaminsanahay in wali maxkamadda isku dhawaaqin cid badda ay leedahay laakiin sababta uu soo istaag waxay tahay gabdho iyo wiilal iyo odayaal in xitaa ay diyaar u yihiin ama ay hadal hayaan arinta badooda ee ka soo tageen waxyaabihii kale sidoo kale waxaan arkay madaxda qaar ayaan arkayay oo waxyaabihii kale lagu aragti duwanaay meel iska dhigay maantana diyaar u ah in ay hal meel ka soo wada jeestaan si ay dalka ugu samata bixiyaan arimahan qabsiga ee badeena waan rajayn doonaa in aan noqono kuwa guuleysta in aan noqono kuwa mar walba guusha dhankooda ahaato waa ka warqabaa Soomaaliya adigana waa ka warqabtaa Soomaaliya xaaladda waqti xaadirkan ay ku jirto ama xaaladda cakiraanta ee waqti xaadirkan ee xaalad kala guur lagu tilmaami karo adigan hadii daabanayo waxa taa qof dhalinyaro ah ana aaminsan 90% dhalinyarada ugu xiran inay dad dhalinyaro ah way jiraan dad igu waaweyn oo ugu xiran farxad ay tahay qof weynna inuu idaawado dhankaas ka soo gudbo waa wax weyn in dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta dalkooda dhagahooda hayaan indhaha ay ku wada fiirinayaan sidoo xaalku u socdo aniga soo dhalinyaro ee maanta ahna qof maanta aan daadi loo rabay oo weynaanta zaidka aan gaarin laakiin se ka warqabo xaalad walba la socdo wadankiisa waxaan ku faraxsanahay midaas waan rajaynayaa in aan wax badan oo karaankeyga ah wadankeyga aan u qabto adiga hadda idaawanaya inaad wadankaada karab istaagi kartaa waa inaad wadankaaga xaalad cakira markuu ku jiro sida maanta aad diyaar ugu tidiin ama xaaladaha dhagta ugu haysaan oo hal meel ugu soo jeesateen Soomaaliya waxyaabaha inta badan ay ku fiicanta waxay tahay iscaawinta Soomaaliya hal qof oo dhibaataysan haday arkaan dhalinyarada ama dadka Soomaaliyeed oo dhan hal mar u istaagaan qofkaas sidaas loo qabtaa waana laga samata bixiyaa waxa markaas uu tabanayo sidoo kale Soomaaliya arin oo liidataan Soomaalida hadii wadamo kale nala imaadaan Soomaaliya hal meel ka soo jeesataa hadii abaaray wax dhacaan Soomaaliya hal meel u jeesataa waa sababta Soomaalida ugu duban yihiin wadamada kale oo yihiin dad isku gargaara isku naxariista taasina waxa waaye waxaan aaminsanahay inuu Ilaahay si qaas inoo siiyay mahadaas weyn Ilaahay ay u sugnaatay muhiimadda mar raba in warka ku soo dheeraado dhalinyaro daaranka idiga tagay waxay tahay waxaad tidin dhalinyaro Soomaaliyeed
waxaad tihiin dhalinyaradii waddankan sugayay oon aniga ka mid ahay. waxaad tihiin waddankan dadkii samata bixin lahaa. dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u rajeynaa in ay guuleystaan meel walba ay joogaan, iskugu jiraan gabdho iyo wiilal. waxaan rajeyn doonaa in aad noqotaan dad dadkooda wax u qabta, dad dadkooda xitaa waddankaada haddii aadan wax u qaban karin oo hanti ama fikrad u keeni karin, waa inaad waddankaaga afkaaga xitaa wax ku dhihi kartaa. waa in xitaa afkaaga xitaa aad kaga celin kartaa wadamada kale. waa inaad afkaaga xitaa waddankaada ku difaaci kartaa. وهي هذيك عيد كم هذا لأن أو ما أنت ملأ معناها أو معنى درم هذا كسر جديد. بعد كسر جدا صوماليا واحد لو يقعنا يسيد أفريقيا مركا وأنا ودك إن قرب استغنى وسبب كان هيك أنت وحاول جد أنا صوماليا قول إن شاء الله. وأنا مثلا هاي بقول كي بس عشان يسجل إن أنا نقد نكو قولستا بدو الدب سوء عشتا وياها ممكن إن يدب جوجي. هذيك أنا سيدو كله وعرجال عقبتكم تجين عاد dhalinyarada ama ha noqoto erayo baraarujin ah ama ha noqoto in aad waddankaada uga duceysid, wax weyn ayayna noo tahay in aan dhammaantiin aan garab istaagno waddankeena. ku maasanta daawashada muuqaalkayga. anigu Cabdullaahi Kashka, sidaas iyo nabadgelyo.